السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفر وناكسن صاحبيال سود هذا مركلة يمقال كله هدي الله إلى دعوة حنداون دونا يا رادك ودحيس لوضع تيم أرسنال جلسي فينالك هدي الله إلى هذا جروب كم داون دونا وحتى دونا بنانك دام يحسب بدنتها عيارته ساعة متقنا دينا وصل داونا إن شاء الله والله صعد هدي الله إلى وياك صاحبيال waxaa hadda joognaa ama ku sugan meeshii ama goobta ciyaarta laga daawanayay asxaab badan baa ila fadhiyo oo ka mid ah Abdalle sidoo kale ciidaad Mudaas sidoo kale Ali sidoo kale kan fadhiyo Katiriye sayna reer jalsa insha Allah waa arki doonaa hadii Ilaahay ciyaarta hadda bilaabanaysa arkayna insha Allah hadii Ilaahay cidda badisay wixii lagu kala صاحبي عيارته waxay maraysaa afar iyo hal wala kala adkaaday sida caawiyay Arsenal meeshi taasi caadi meeshi tawaadin mayo meeshi ciyaar baan u soo doonay dadka bidoodii guriga ka tagay baash wali boosiyo soo wareysay epic club baan ku jeedaa laakiin aad baan ku laakiin waxa waa kubad waa agi madow Allah ayow maxaa qabsanayna sanadada ma ka beegsan doona insha Allah طبعا حاليا ارسنال وحقاده هستي يا حرف بلالدي هذا علي افكي با جوقدي قوي دفاعي با جوقدي قوي والله حسوقي waxu qaaday didir waa soo taageertay halkan naga daawanayso waxa uu sheegi lahaa abaha xanaaqina naadiga isaga taga aw idinka ma leedin ka tashada nimankan Ingiriis ma tiidin isaga taga idinka Ingiriis ma tiidin nimankan naadiga ganacsiga oo haystaan waxa waa suuqa lacagaha uga soo xaroonaya rabaan marka waxaan leeyahay koox kale aad taageeri kartaan taageera aad koox kale oo macquul ah taageertaan kubadda cagta xaq u leedin aad daawataan isaga fariista marka intaasna waa kaftan waxa waaye كل سنة تحقق إن شاء الله أرسنال Champions League مسؤول مادام يورو ليج نا يكون يسوي كالين تافران ما يكسب بحوالي marka tacsiba u direen dhammaan asxaabta taageertay Arsenal عدو حلنا حواني تيم من ليفربول تاجران هاي marka kulanka dambe Liverpool ma sidaas ogeen Arsenal taageeray kulanka dambe Liverpool ma aragtay finaalkaas aan guuleysan doonaa insha Allah waxa waaye waxaan kale naga daa marka Arsenal iyo sheekadeedii naga daa marka insha Allah Arsenal waxa uu tagay in Abdullahi Allah dhaafo tirihay caaw farxad marka awood baa caaw muujinay marka waxaan leenahay aan iska badiyay leenahay Arsenal koobkan anaga qaadnay ka xunay koobka idinku wali miinada dhimin laakiin insha Allah waa qaadi doontaa denin dhimana jira shaam ambali leenahay Chelsea xilliga kooxda Arsenal waxa leenahay shaagadaasha Arsenal baan dhulkiina iyo saan dhulkiina iyo baan dhul extra ku dadaala caaw baan dhulkiina ku dadaala iyo saan dhulkiina extra saaxiibkii hadda doonay saan dhul maxaa ka dhacay kinilada madaxa loo cuno madax dajiyaasha ka jirin baa la dhaca waxa la leeyahay u fahmay taageeraasha Arsenal wali الله يا صاحبي هذا حلقة كان عقاب صاحبي أبي يقول لي دافن طبعا حبوا بارد ولا مصيب أنا قلت الست ما تاجره ست ولا ما عندي ريال واسكب بدينا ديري قلت أهيرا كفتمو أو نين أرسنال تاجره عندي كبد عاتم ملك العادة لا تنلعب ستي على تاجرين صوتوا ستي تاريخنا أرسنال كم وينه Champions League mataqaana guulka keenana ma aha marka hadiyadan Champions League ciyaaraya guusha ka keenaya hala aado si shalay horyaal bilowday awaaye cunuga xilligaas dhashay waxa waaye xamalayna cunugaagi City oo isleegiin baa uradkayga iyo City waa isleeg baa maleegaso ninkan cunudkiisa iyo City aa isleeg marka asxaabta reer City naga raali noqdaan hadda dunida waa dul casriya taariikh baa lahaan jiray iyo toban baalin dooriyoor baan qaaday iyo Premier League ku 900 maxaa ka gareeyay baan soo jiray lagu kala tag right now maxaa tahay weeyii ilaa ma la abuuro shalay ma la abuuro hadda maxaa tahay right now ma City hadda waa kooxda kaliya UK wadanka la isku dhaho Ingiriiska ugu quwada badan saddex koob bay qaaday London ku soo qaban kara dhigi weyna London keena hadda kan kii labaad weey ama kii saddex kii labaad miyaa malaynaya oo wado Arsenal hadda waa ka tagayaan waxa rabaa la xafaadsamo Liverpool iyo sanadada waaweyn runtiisa
Chelsea xilligii ay soo kacday markii laga hadlayo 2004 kacaankii ay bilowday Chelsea ilaa iyo laga soo gaarayo xilligii ay championka qaadaysay dadkii waxay ka mid ahayd Yurub gilgilayay Chelsea sama final ay tagaysay muxuu ahaa mar final bay tagaysay final xilli laga qaaday waxa jirta Man United ay ka qaaday so Chelsea waqtigii kacaanka ay waday way ka faa'iideysatay balse Arsenal xilligii horyaalka ay beating ku qaadayso kale taa ka hadalno ay kamaysan faa'iideysan inkastoo ay dadaasho oo final ay tagtay haddana Barcelona ka qaaday laakiin wixii inta ka dambeeyay Chelsea kamaysan faa'iideysanay Arsenal kamaysan faa'iideysanay laakiin wixii inta ka dambeeyay ragii naadigu ku socday oo kale Henry uu kamid ahaa markii laga tagay waxay in isbedel la sameeyo way dadaaleen baleero waa la keenay haddana nasiibka ceelay laakiin anigu waxaan qabaa mar walba in Arsenal xageeda ragga gacanta ku hayo aysan u agar bixin oo suuqa galin marka waxa weeye runta hadii laga hadlo waxa waa Chelsea baalki dhagaweynaha ay London geysay Tottenham sanadkan final ay joogtaa ayadana waxa laga yaabaa hadii ay guuleysato in naadiga labaad ee London oo baalka keenay ay noqoto marka waxa waaye Arsenal uma hayo aniga taageerada waa kamid ahay laakiin waxa waaye dadaalkeeda iyo qaabka ay ku wadaan runtii ma ahan wax ay kula qaybsan karaan naadiyada waaweyn ee Yurub ka jiro marka naadiga in qarash la galiyo oo coach fiican loo raadiyo oo sida kooxaha asaagooda in ma taqaana dadaal la galiyo bay wax ku qaadi karaan laakiin in 40 milyan hada waxa maqlay Unai Emery asagoo la suuq markuu furmo xagaagan 40 milyan baa wadana 40 milyan Fulham baa mise Southampton budgetkaas naadiyada xataa sanadka hadii la soo dhaafay West Ham 100 milyan ay suuqa ku qarash gareysay isku dardarka baleerada ee soo gaartay markii laga hadlay wiil sharci gateen rag badan ay gateen soo marka waxa waa Arsenal qaabka ay wax ku wado runtii ma ahan qaab ay wax ugu guuleysan karto asxaabta Soomaalida ee halkan iga daawanaysa Arsenal taageertana waxa kula talin lahaa in ama iska dhaafaan daawashada iyo madax xanuunkeeda ama koox kale oo qalantay inay raadiyaan markii Tottenham soo qaado champion Arsenal fadhiyay ceeb bay ku noqonaysaa hormar fiican bayna sameysay iyadoo lagu qulixda final bay tagtay horyaalo badan bay leedahay naadi Tottenham iyo Chelsea marka hore ka magac weynaa weey laakiin hadda waa la soo gaaray arinta kale xiisaha leh waxa weeye hadda caawa waxa guuleysatay Chelsea waxay u wadaa Euro League inay geysay London sidoo kale habeen dambe finalka waxa taagan Tottenham iyo Liverpool hadii ay dhacdo in Tottenham ay koobka soo qaado waxa u maleynayaa Chelsea waa la xishoon doontaa Euro League way xareynaysaa sababtoo ah laamiyada waaweyn ee London markii lagu wareejinayo dhagaweyne waxa u maleynayaa Chelsea bahalka ma wareejin karto marka waxa u maleynayaa hadii Tottenham ay champion ku guuleysato Chelsea tacsiba u taala iyadoo guuleysatay baalkaasna inay xareyso oo qarisay ku qasbanta wanaag saaxiibayaal aad u maasantiin waxa inta soo ogayd muuqaalkii ama falowgii yaraa ee aan duubnay uga hadlaynay gameka caawa marka waxa la Chelsea balyo ninkii Hazard ahaana waxa waaye waxa maleynayaa Real waa iska gadayo wala soo doonan doona hadii Ilaahay yiraahdo aad u maasantiin inta muuqaalkan mid la mid ku kulmi doona waxa kaga tagaynaa